بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka barnaamijkan caawa waxaan diiradda saaraynaa maqaal uu qoray falanqeeyo Israa'iili ah oo si adag u dhaliilay siyaasadaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu intii uu socday dagaalka Gaza iyo colaadaha gobolka falanqayntan ayaa soo bandhigaysa dood ku saabsan sida fikradda loogu magac daray guusha buuxda ay u bedeshay istiraatiijiyadii hore ee Israa'iil ugana leexisay aragtiyihii siyaasadeed iyo military ay ku dhisnaayeen hogaamiyaashii hore ee Israa'iil waxaa sidoo kale la isweydiinayaa saameynta ay siyaasadaha Netanyahu ku yeesheen ciidamada Israa'iil xiriirka Mareykanka iyo mustaqbalka amniga gobolka hambalyo waa perfect Moroccan soap quruxdii bilayd iyo bilicdii jirkaan helay haddii aad baxayso cid kale booqanaysiyo markay bilan aroos tahay si laguugu bogo oo bilicdii dhalaalka ku qubayso oo badi perfect Moroccan soap haddii aad ku sugan tahay dalka UK iyo Yurubta kaleba waxaa lagu keenay saabuunta perfect Moroccan soap oo ah saabuun la isla qiray inay tahay tii sanadka waa mid organic ah halkii caag waxaa ku jira 1 kiilo waxa ay leedahay noocyada olive oil black caviar oo ah ukunta malayga argan oil oo caan ku ah dalka Morocco iyo olive and honey oo la isku daray haddii maqaarka wajigaaga aad isbedel ku aragto xaajiyaduna kaligeed nuura inay ku noqoto aad doonayso quruxda gabadhaadana ay gabdhaha kale ku sheekaystaan ama wiilkaaga maqaarkiisu u ahaado mid u dabacsan sidii yaraantii waa perfect Moroccan soap midda ugu habboon ee jirka intaasoo dhan ka qabtiraysa haddii aad ku qubaysato perfect Moroccan soap xataa uma baahnid saliid cream ama wax kale iyada ayaa jirka ugu filan haddii aad leedahay ganacsi iyo online business intaba waa lagugu keenayaa halka aad ku sugan tahay qiimo macquul ah kala xiriir asli general trading iyo telefoonka shaashada saaran soo dhawaada mar kale daawadayaal hadaba maxamed cade oo warbixintan oo uu wargeyska iyo dihood ahronood ku daabacay qoraaga nadaaf iyaal ayaa barnaamijka ila falanqeynaya maxamed maxay ku bilaabanaysaa warbixintu adiga oo ku bilaabaya ciwaankeeda lafagurahan arrimaha siyaasadda waxa uu cinwaan ka dhigay sidee Netanyahu waalidiisa ay u burburinaysaa ciidanka iyo nidaamkiisa iyadoo lagu guda jiro ayuu ku bilaabay qoraalkiisa dagaal soo bilowday Oktoobar 7 2023 ayaa wargeyska la yiraahdo Yadacood Axranood waxa uu daabacay maqaalkan uu qoray Nadaaf Eyal oo bartiisa bulshada ku daabacay qoraalkani waxa uu dabool ka qaadayaa qalalaasaha ka jira Israa'iil gudaheeda wuxuuna bartilmaameed ka dhiganayaa gaar ahaan khaladka istiraatiijiyadeed ee xukuumadda Benjamin Netanyahu iyo sida halku-dhagii ahaa guul kama dambaysa ayaan gaaraynaa inay isu bedeshay khiyaali burbur keenay oo meesha ka saaray caqiidadii militariga Israa'iil wadanka Israa'iilna ku jiiday dhiiqo aargudsasho ah halka la iska indhatiray aragtidii siyaasadeed loona booday xaqiiqo ah in la sameeyo guul weyn halka laga booday xaqiiqada ah taariikh ahaan militariga Israa'iil sababaha loo aasaasay waa gartay marka isla qodobkaasi sidee ayay siyaasadda guusha buuxda ee Netanyahu uga duwan tahay istiraatiijiyadii aasaasiyaasha Israa'iil qoraagan ayaa wuxuu ku nuxnuxsaday sida ay isu khilaafsan yihiin ballanqaadyada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dagaalkii uu islahaa wuxuu noqon doonaa dagaal wax walba ku qabsataan iyo xaqiiqada lagu aasaasay Israa'iil wuxuuna sharaxaad ka bixiyay in sahyuuniyadda ay xudun u ahayd in wadanka Israa'iil laga shaqeeyo laakiin taas oo dhan inta gees maray ayuu wuxuu raadiyay guul kama dambaysa maxaa yeelay hogaamiyaashii hore ee Israa'iil aasaasay waxay u arkeen arrintan in aynan suuragal ahayn maadaama carabtu ay ka tiro badan tahay Israa'iil in la aamino badda in macnaheedu yahay ay badda tahay carabtuna meel kasta ay joogaan inay carab yihiin kana go'an tahay Israa'iil wax walba oo dhaca
in aynan gaari karaynin go'aan kama dambaysa oo ay dhulka ku qaadato. sidaa daraaddeed dagaalkii 6 maalmood ahaa Levi Eshkol xukuumaddiisa waxay go'aansatay in ay ka baaraan degto in dhulka Israa'iil nabad lagu soo dabaalo. mowqifkaasi ayaa waxa uu ka yimid faham ah in xaqiiqada la taabto si qumaati loo taabto. ma ahayn Moshe Dayan, Pinhas Sapir iyo Eshkol oo madaxdii hore ah kuwo siyaasadooda ay midigta u janjeertay oo wax walba iska aaminayay, laakiin waxay ahaayeen dad ogsoon shaki weyna ka qaba jiilka hadda Israa'iiliyiinta ee nool iyo waxa ka suuragalka ah inay sameeyaan sida qoraaga uu xusuusinayo. kadib markii ay soo baxday Israa'iil inay noqoto awood gobolka ka jirta oo tiknoolajiyadda ka faa'iidaysatay xulafana la ah Maraykanka, waxaa aad u liitay awoodda militariga ee wadamada dariska ah. laakiin waxaa dhacay Oktoobar 7 saskii ahaa in ururka Xamaas ay weerar gaadma soo qaadaan Israa'iil oo soo taaganna waxa aragtay ku dhacaan. arrintaas waxay Israa'iil ka dhaadhicisay in colaadda la soo afjaro gabi ahaanba. Netanyahuna wuxuu ka faa'iidaystay in uu ku dhawaaqo ballanqaad aan suuragal ahayn oo ah guul kama dambaysa in la soo heeyo. waa gartay isla arrimaha Gaza ma dhaba in dagaalka Gaza uu noqday olole argoosi ah oo ka madan aragti siyaasadeed? qoraaga ayaa waxa uu tilmaamay guul xaqiiqo ah in Gaza laga helo suuragal waa ahaan lahayd haddii maamulka Falastiiniyiinta hore loo diyaarin lahaa oo ay noqon lahayd awood lagu bedelo midda Xamaas halka laga qaadan lahaa fikirka u dhigmay kii Yurub lagu badbaadiyay dagaalka labaad ee adduunka ee qorshihii Marshall yiraahdo ama Marshall Plan oo sawir wanaagsan dadka Falastiiniyiinta la tusi lahaa. suuragal u ahaan lahayd in ururka Xamaas la jebiyo, mustaqbal wanaagsanna Falastiiniyiinta loo dhiso u dhigma sidii Yurub wixii ka dambeeyay Jarmalka markii la jebiyay. saahatee qoraagu waxa uu fasirayaa xukuumadda hadda jirta ee Netanyahu oo xag jirka ah inay waalan tahay, isla markaasna ay door biday aragti ay ka soo amaahatay kutubka masiixiga oo ay aaminsan yihiin in guul lagu gaari karo aargudasho la iskana indha tiro guusha dhabta ah oo ah in Falastiiniyiinta maamul ay leeyihiin ay tallaabo ka qaado ururka Xamaas. wadadaasi xukuumadda marnaba ma aysan tijaabin wayna eeday. waqtiga hadda la jooga ayuu qoraagu tilmaamayaa in xukuumadda Netanyahu ay dagaalka ku gashay hadafyo aan la qeexin. dad badan oo Falastiiniyiin ayay daanta galbeed ka barakicisay, wax guula oo ay ku naalootana ma hayso. waa gartay isla qodobkaasi maxay yihiin cawaaqibka ka dhalan kara yoolalka aan si rasmi ah loo shaacin? Nadaaf Eyal oo ah qoraaga maqaalkan ayaa digniin ka bixinaya cawaaqibka siyaasadeed gaar ahaan siyaasaddan qeyr mas-uulnimada ah oo ka dhanka ah nidaamkii militariga loo aasaasay. ayuu waxa uu sharaxay fikirka ah in dagaal wax lagu xalliyo amni xumadana ay ballaarato. waxa ay horseedaysaa in awooddan xaddhaafka ah in ay xadgudub samaynayso, mana laha saqaf istiraatiijiyadeed. wuxuuna ku nuxnuxsaday ciidanka Israa'iil waxaa hadda haleelay sas iyo dhibaato u soo hoyatay oo muujinaysa tabardaradooda. waxa ayna ka leexdeen istiraatiijiyadii ciidan militariga xakamaynaysay ee la xiriirtay mabaadi'da ciidan, kala dambayntooda iyo in muddada dheer laga fikiro. hadda ciidankii wuxuu isu bedelay burcad.
waa gartay marka sidee ay dagaalada daba dheeraaday u saameeyeen mabaadi'dii iyo aanshixii ciidamada Israa'iil? khabiirkan ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday sahyuuniyadiintii aas-aasay xukuumadda Israa'iil waxay aaminsanaayeen in tallaabo toos loo qaado isla markaasna la diido military awood maroorsada dagaaladuna ay noqdaan kuwa loo dagaalamo marka ay muhiim yihiin oo keliya. taasna waxa ay keenaysaa dagaaladu inay noqdaan kuwa kooban, laakiin in dagaalka uu daba dheeraado ama dagaalo badan ay gashid oo la isku riiqdo ma ahayn hadafkii loo aasaasay ciidamada Israa'iil. wuxuuna ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in caalamka oo Israa'iil u garaabayay la ilaaliyo lana ogsoonaado khatarta ka imaan karta yuhuud nacaybka haddii aanan laga fekerin marka ololaha military la qaadayo arrimaha saas oo kale ah. xaqiiqadu waxay noqonaysaa in ciidanka iyo xukuumaddaba ay isxakameeyaan. waxaa loo baahnaa taxadar aad u weyn oo laga baaqsanayo qorshayaal khiyaali ah iyo cadowga in la burburiyo marka laga reebo khudbooyinkii taariikhiga ahaa ee la jeediyey markii aan ku guulaysanay dagaalkii koowaad ee Lubnaan 1982 iyo howlgalkii uraniumka ee lagu burburiyey uraniumkii Ciraaq iyo kii Suuriya. Israa'iil waxaa loo dhisay in ay noqoto dowlad awood leh, qani ah, waxbarashada ku fiican iyo nidaamka caafimaadka, kana difaacda muwaadiniinteeda in la afduubo sidii dhimashadii dhacdo kale oo 1200 ee qof lagu laayay dagaalkii Oktoobar 7 subax anagoo taagtaagan. waa hagaag marka falanqayaashu maxay uga digayaan in Netanyahu uu Israa'iil u horseedayo guuldaro istiraatiiji ah? isku dayga shakhsiyan Netanyahu uu isku dayayo in uu isbedel waaweyn ku sameeyo gobolka bariga dhexe inay tahay khiyaali waali ah oo si weyn u guuldaraysanaysa, halka ay tahay in hoosta laga xariiqo in guulo la gaaro dhulka ah. ayaa cambaareeyey in aynan jirin anshax iyo akhlaaqiyaad dowladda Israa'iil ay wado iyo shacabka siday ula dhaqmayso, waxayna qarsanaysaa xaqiiqada ah inaynan marnaba suuragal ahayn in hubka laga dhigo ururka Xamaas. xaqiiqadu waxay tahay in ciidamadu ay joogaan Lubnaan waxay u adeegaysaa danaha Iiraan iyo Xisbullah, annagana dhibaatay noo keenaysanaysaa haddaan Israa'iil nahay. wuxuuna ku nuxnuxsaday in siyaasad khaldan la raaco lagana leexdo mabaadi'dii isdifaaca iyo awood ilaashashada. waxa ay nagu riixaysaa ama nagu riixday inaan dagaal isla galno annaga iyo Maraykanka annagoo ogsoon in dagaalkaasi uu dhammaan doono. waxayna horseeday in xiriirkii diblomaasiyadda caalamku lahayn inuu meesha ka baxo, awooddii ciidankeena inay weeqanto, isla markaana inuu hoos u dhaco ku tiirsanaantii iyo xulafadii aan la lahayn waddanka Maraykanka. waa gartay isla arrimahaasi sidee ayuu khilaafka Washington iyo Tel Aviv u saameyn karaa mustaqbalka gobolkan? waraaga ayaa wuxuu fariintiisa ku soo gabagabeeyey isagoo digniin ku bixinaya xaaladda hadda socota ee dagaalka ah in ay ka soo horjeedo dabeecadda iyo dhaqankii loo aas-aasay ciidanka Israa'iil. wuxuuna ku nuxnuxsaday inaan laga baaqsan karin in lagu soo noqdo siyaasad xikmad leh, bartilmaameedkan laga dhigo dib u dhis iyo difaac wax ku oola in la sameeyo. qoraalkan uu iyal qoray waxaa ka dhashay falcelin aad u ballaaran oo dad badan ay ka jawaabeen gudaha iyo dibadda Israa'iilba ku sugan, oo ay bogaadinayaan waxa uu sheegay in ay sax yihiin ayna tahay xukuumadda in ay dhaqanka burburinta ciidanka iyo siyaasad xumada ay joojiso.
waa gartay ugu dambeyntii Israa'iil ma lumisay jihadeedii siyaasadeed iyo military ay ku maareyn jirtay colaadaha gobolka sida qoraagan lafaguraha uu bartiisa ku tilmaamay waxaa la joogaa buu yiri xilli xiisad weyn ay ka jirto Israa'iil iyo Mareykanka dhexdiisa marka qoraalkan uu qorayo iyo iyadoo ay ku kala leexdeen Mareykanka iyo Israa'iil in heshiis lala galo Iiraan iyo Xisbullah dhanka kale wax lagu xumaado waxa ah in nidaamka amniga iyo nidaamka siyaasadeed ee Israa'iil in uu u dhaleecaynayo sida madaxweyne Trump uu u maareynayo arrimaha Iiraan iyo Xisbullah gaar ahaan dowladda Mareykanka markay heshiis isfahama la saxiixatay dowladda Iiraan arrintaasna waxa ay sii fogeysay hogaanka Israa'iil inuu cabsi weyn ka qabo isla markaasna sii xoojisay in wadadii ay ka khaldantay Israa'iil meel ay ka soo noqon kartana ayna joogin waa hagaag waan arki doonaa arrimahani waxay ku soo kordhaa aad baad u mahadsantahay maxamed daawadayaal idinkana aad baad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaa naga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN Online TV ama hore aadan ugu xirnayn ku soo biir baraheena kala duwan internetka aan ku leenahay inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xiga insha Allah nabadgelyo ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku uu u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah oo ardaygu uu ku qanacayo waalidkana u qafiif ah qof kastaana docdiisa uu duruusta ka qaato waalidiin badan oo ku nool dibaddu waxa ay raadinayaan dugsi quraan oo online ah oo dhammaystiran kaasoo si buuxda u bedeli kara dugsiyada tooska ah isla markaana bixiya dhammaan adeegyada waxbarasho iyadoo loo marayo casharro toos ah lana baranayo quraanka maadooyinka asaasiyaadka diinta iyo higaada qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay waxbarayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo la adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka iyadoo sidoo kalena la sameeyo la socod joogta oo waalidiinta waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah oo loogu talagalay waalidiinta si ay ula socdaan horumarka carruurtooda haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashadda kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online